Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waa idin wada salaamay walaalaha ku xiran channelkeena Zag Multimedia. Maanta waxaan rabaa inaan idil wadaago su'aal oo inta badan ay iga soo weydiiyeen walaalaha ku xiran channelkeena Zag Multimedia dhanka iyo social media sida Telegramka iyo WhatsAppka. Su'aalahaasni waxay ahaayeen hal su'aal oo isku wada mid ah. Su'aashana waxay tahay kombiyuutarkayga ama laptopkayga culays fara badan ayaan ka dareemaa, marka sidee ayaan ugu qaadi karaa culayskaasi. Marka inta badan kombiyuutarkan hadda aan adeegsano waxaan u isticmaalnaa internet iyo sidoo kalena waa muhiim qodobkani. Waxaan aragnaa saaxiibadeena ama walaalaheenaba in falaasho ay wataan in laptopkeena ay geliyaan, sidaasna laptopkeena cilado uu ku qaado. Waayo falaashkaas waxaa laga yaabaa in uu saameyn u wato sida fayraska oo kale inuu yar wato. Kombiyuutarkan hadduu mar virus uu ku dhaco culayso fara badan waad ka dareemaysaa oo dhibaato fara badan. Mararka qaarkood waxaad arkaysaa in mouskaaga lagula controlayo oo kale. Mouse meel aadan ku dhufanin in uu iska yara furo. Inta badan su'aalahaas waxaan ku xalin jiray waxay tahay qaab personal ah. Shakhsi ayaan ugu xalin jiray. Laakiin maanta waxaan rabaa inaan si guud ah aan u wada faa'iideysano sida culayska loogu qaado kombiyuutarka. Marka stepskan aan mari doono insha Allah waxaan rajayn doonaa in xoogaa yar kombiyuutar culays ah in ay xoogaa yar fast ay ka yara dhigi doonaan. Marka daabasho wanaagsan. Ugu horreyn qodobka ugu horeeya wuxuu yahay program start app. Maxaa la yiraahdaa program start app? Waa programmada markii kombiyuutarka la yara daaro ku soo yara kacayaan. Programmiskaas inta badanna waa programmiska kuwa ugu yar anaga aan isleenahay, laakiin ayaga waxay ku keeni karaan culayso fara badan. Marka intee ayaan ka heli karaa program start app, halkeena ayaan ka heli karaa? Ugu horreyn marka waxaad tagaysaa taskbarka. Marka taskbarka ayaan right click siinaynaa, kadib waxaan kasii dooranaynaa task manager. Markaan task manager aan sii xulano kadib waxaad sidaad meeshan aad u jeedo start app. Marka waa kana programmada oo inta badan ku soo yara kaca kombiyuutarskaaga, kuwaasna u sabab kara in kombiyuutarka culayso fara badan u keenaan. Marka sidaad u jeedo programka aad rabto in aad ka yara xiragto waa in uu ku ahaada disable. Laakiin haddii programka uu ku yahay enable uu shaqeynaya kombiyuutarkaaga markaad daarto wuu la soo yara kacaya. Tusaale marka sidee ayaad u xiri kartaa programkan? Marka sidaad u jeedo hadda internet download manager waa software loogu talagalay in muuqaalada iyo softwareada oo inta badan lagu soo degsado qaab speed ah. Midkan waa enable. Sidee ayaan disable ugu dhigi karaa? Laba qaabood baan ugu dhigi karaa. Marka ugu horeyso aniga asaga ayaan dooranaya, kadib meeshan sidaad u jeedo disable ayaa ku yara qoran. Xogaa aan soo yareysano. Qaabkaasi waad ugu yara dhigi kartaa. Qaab kale wuxuu yahay inaad right click aad siiso kadibna disable aad dhahdo. Insha Allah kuma soo yara kici doono programka markaad kombiyuutarka aad yara daarayso. Laakiin haddii right click aan dhahno enable uu yahay programkan wuu la soo yara kacaya kombiyuutarkeena. Marka programmada oo inta badan aad u baahnayn disable iska yara sii. Qaybta labaad waxay tahay oo aniga inta badan aan ka cawado waxay tahay Windows update. Windows update sidaan wada ognahay kombiyuutarada wuxuu ku sababi karaa in culays fara badan oo u keeno. Waayo Windowska hore ayaa ku yara jiro, Windowga cusbayna sidaas ayuu ugu yara shubaya. Tusaale ahaan haddaad adeegsanayso version 18 uu kaaga yara dhigo version 19. Versionka 18 kombiyuutarka wuu ku jiraa, laakiin adigana ma ogid waxaad isticmaalaysaa versionka 19. taasina way sababi kartaa culayska faraha badan oo ku yimaada. Kombiyuutarkan update badan inta badan uma diro, laakiin update-ka badan culayso fara badan ayuu u yara keenayaa. Oo sidaan wada ognahay Windowska hadda aan adeegsano inta badan lama iibsado anaga waqti xaadirkan haddaan joogno. Marka haddii aad kombiyuutar aad update gareysay versionkii hore wuu kuugu jiraa, versionka cusbayna wuu kuugu yara jiraa. Marka intee ayaad ku ogaan kartaa? Ugu horreyn waxaad u furaysaa this PC. Aniga hadda kombiyuutarkan versionka hore kuma arkaysid waayo maba update gareynin. Marka waxaad tagaysaa local disk C halka uu ku jiro Windowska. Marka asaga markaad furto ugu horreyn marka meeshan wuxuu kuugu soo qorayaa Windows old. Hadda Windowskan Windowska iska yara caadi, laakiin Windowska kale oo versionkii hore wuxuu ahay Windows old ayuu intuu kuugu soo yara qorayaa. Marka haddii Windows old uu kuugu jiro culays fara badan ayaad ka dareemaysaa. Aniga hadda laptopka kale aan adeegsado ayaan waxaan ku yara aragtay Windows old. Marka laptopkaasi kale ayaan u gudbi doonaa. Marka ugu horeyso sidaad u jeedo marka waxaan u baahannahay local drive C-ga. Waayo local drive C-ga waxaa ku yara jiro Windowska aan u baahannahay. Marka local drive C-ga markaan yara furno marka sidaad u jeedo meeshan waxaa noogu jiro Windows old. Sidoo kale meeshan waxaa ku yara jiro Windows iska yara caadi ah. Marka Windows old-gan wuxuu inta badan yara keenaya culays aad u fara badan. Waayo hadiskahana culays fara badan ayuu saaraya oo intaas GB ayuu yara wataa. Marka haddii hadda isla fiirino GB-ga oo folderkan ka yara kooban yahay, ugu horreyn marka waxaan leenahay right click kadibna waxaan kasii dooranaynaa properties. Marka hadda wuu yara socdaa 2 GB
ilaa iyo adiga intuu yara taga ayaan yara fiirin doonaa. Windowskan waa farshankii hore oo aniga hore aan u adeegsan jiray waa 18kii kan, laakiin waxaan u malaynayaa in uu 19 uu yahay. Marka sidaad u jeedo hadda meeshan waa 29.7 GB. Marka waadna dareemi kartaa diska laga qaatay 29 GB culeyska ku imaan kara. Marka Windows update-kan marka sidee ayaad u tirtiri kartaa? Ma waxaad leedahay shift delete ayaad leedahay? Maya, qaab waxaa jirto oo inta badan loo delete gareeyo. Marka waxaad dib dambe ugu soo laabanaysaa local disk C-ga. Hadda marka sidaad u jeedo meeshan tiradan xoogaa yar markaan delete gareyno inta ayay u yara noqon doontaa. Marka ugu horeyso waxaan leenahay local disk C-ga ayaan right click leenahay. Kadibna waxaan kasii xulanaynaa properties. Markaan properties aan ka xulano kadib waxaan kasii dooranaynaa diski clean up-ka ayaan ka dooranaynaa. Markaan click aan siino xoogaa yar wuu soo yara daahaya, hadba waxay ku xiran tahay performance-ga computerkaaga. Kadib marka sidaad u jeedo meeshan ayaa waxaad ka raadinaysaa Windows. Meeshan sidaad u jeedo wax Windows ah nooguma muuqdo. Kadib waxaad kusii yara dhufanaysaa clean up system files ayaad ku dhufanaysaa. Hadda marka fileka ayaa isload gareynayo kadib box kale ayuu kuu soo bandhigi doonaa. Marka adiga marka waxaad u baahan tahay Windows upgrade uma baahnid. Waxaad u baahan tahay kaliya file ay ku qoran tahay Windows previews. Waa Windowskii hore. Marka sidaad u jeedo meeshan waa 31.1 GB. kaliya wuxuu sheegaya folderkaas 29.7. halkan meeshan sidaad u jeedo waa 31.1 GB. midkani ayaana saxsan. Marka haddii aad rabto inaad delete gareyso ugu horreyn marka asaga ayaad ficta saaranaysaa. Markaad ficta aad saarato kadib waxaad kusii dhufanaysaa okay. kaliya waxaad leedahay okay. Ma hubtaa faylkani in aad si toos ah lagaaga delete gareyn doono. ugu horreyn marka intaan delete file aan dhihin marka waa in iska fiirisaa waxyaabahan kale oo ku yara saaran oo ficta. kaliya waxaan u baahannahay asaga waan ka soo yara qaad wax walba ficta saaran ka soo yara qaad. kaliya marka waxaad u baahan tahay waa Windows preview. kadib marka waxaad leedahay okay. kadib marka waxaad leedahay yes file ayaad ku dhufanaysaa. waa filekii waxaa lagaaga bixinayaa Windows old ayaa laga bixinayaa. Marka meeshan waxaa lagu leeyahay faylashii waxaa laga bixinayaa Windowskii hore. kadib waxaan leenahay yes ayaan leenahay. hadda marka wuxuu bilaabayaa in Windows oldiga uu yara tirtiro. cleaningkan up ayuu dhameynayaa oo ilaa iyo inta ayuu yara geynayaa. waayo fileka uu delete gareynayo waa dareemi kartaa waa file aad iyo aad u culus. 30 GB ayuu lugta la sii galay. marka hadda sidaad u jeedo faylkii wuu noo dhameeyey. marka faylka markuu noo dhameeyey kadib marka waxaan iska leenahay okay. xoogaan marka refresh markaan yara siino meeshan sidaad u jeedo 98 ayay hadaad noo yara ahayd. marka hadda marka waxay noo yara naqatay 121. marka sidaad u jeedona xoogaan space fara badanna uu noo soo yara baxay. marka hadda dib dambe aan uga laabano computerkeenii kale. aniga ahaan marka waxaan kula talin lahaa waxay tahay haddaadan Windows update aadan u baahnayn habkee ayaad iskaga xiri kartaa. marka Windows update-ka inta badan mararka qaarkood wuu wanaagsan yahay, mararka qaarkoodna uma wanaagsana laptopka waayo culays fara badan inaad ka dareento ayaa laga yaabaa. marka halkee ayaad ka xiri kartaa Windows update-ka. marka hore right click ayaad siinaysaa this PC kadib waxaad kasii dooranaysaa manage. markaad manage aad ku dhufato kadib waxaad kasii tagaysaa server and application. kadib waxaad kasii dooranaysaa server. markaad kasii yara doorato marka sidaad u jeedo meeshan qodobyo fara badan ayuu kuu soo yara dhigay. marka qodobka ugu hore iska yara dooro kadib waxaad taabanaysaa keyboardkaaga waxaad ka taabanaysaa W. waad wadaysaa W waad wadaysaa ilaa aad ka aragto Windows update. sidaad u jeedo waa kana Windows update. sidaad u jeedo aniga hadda igaagama xirno Windows update-ka waayo running ayuu sameynayaa. manual ayaa ii saaran. marka hadda waa enable. marka sidee ayaan disable ugu dhigi karaa. marka ugu horreyn right click ayaan leenahay kadib waxaan kasii dooranaynaa properties. markaan properties aan doorano kadib waxaad leedahay stop. xoogaa yar wuu joojinayaa shaqadii update gareynka. kadib manualka ayaad furaysaa kadib waxaad kasii dooranaysaa disable. kadib waxaad leedahay apply. kadib waxaad leedahay okay. hadda kuma shaqeynayo Windows update. haddii aad rabto inaad furatana kaliya waxaad leedahay right click kadib waxaad leedahay properties kadibna manual ama automatic labadaas mid un waad saari kartaa. laakiin manualka adiga ayaa gacantaada ku sameysanaya laakiin automatic adiga ma habeynaysa asaga ayaa isyara habeynaya. kadib marka manualka markaan saarano kadibna waxaan leenahay apply kadibna okay ayaan leenahay. marka Windows update-ka hadda sidaan wuu noogu furan yahay. qodobka saddexaadna wuxuu yahay temporary files.
temporary files waa programmiska inta badan markaan soo furno file host ayuu sameynaya fileshaas hostiyada uu sameynayo way badanayaan tiradood aad ay u badanayaan waxay gaari karaan mararka qaarkood GB ay gaari karaan marka temporal files halkee ayaad ka ogaan kartaa asagana uguna marka waxaad leedahay computerkaaga desktopka ayaad meel banaan ka tagaysaa kadib waxaad leedahay right click kadib waxaad kasii dooranaysaa display settings meel kalena way jirtaa waan idin tusin doonaa kadib marka waxaad kasii dooranaysaa waxaad u baahan tahay waa storage markaad kasii doorato kadib meeshaan sida u jeedo temporary fileskan marka hadda waa 150 wuu soconaya tiradiisa aad u soconaya hadda sida u jeedo 2 GB ayuu yaranahay marka faylashani iska yara fiiri faylka aad daleeridaysid hadda meeshaan sida u jeedo download degniin ayuu ku siinayaa faylashani waa download personal waa waxyaabaha internetka aad kasoo degsato oo inta badan qaarkooda waa la iska yara delete gareeyaa qaarkooda lama yara delete gareeyo marka qodobka aad delete gareynayso iska yara fiiri adigoodan si fiican aad u akhrinin waxa inta badan u muhiimsan waxay tahay temporary internet files waa faylasha oo xoogaha yar oo internetka dhankooda kaa soo yar raacay ayu program markaad furto hosti ayuu sameysanayaa qaybta labaadna haddii aan tagno waxay tahay waxaad isla qabanaysaa calaamada start menuga iyo R ama haddii kale start menuga ayaad dooranaysaa kadib waxaad qoraysaa run kadib waxaad leedahay percentage kale ayaad kusoo yara xiraysaa kadib waxaad leedahay okay marka sidaad u jeedo file walba aad furto waa lagu sameynayaa programmada markaad adeegsanayso hosti ayay sameysanayaan intooda badan marka faylashan inta badan kuma wanaagsana adiga ahaan waad iska delete gareyn kartaa kuwani kadib waxaad leedahay control A selection sidii lagugu sameeyo kadibna shift delete ayaad leedahay kadibna yes ayaad leedahay sidaad u jeedo hadda 67 mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in ay ku gaaraan MB iyo sida 1 GB 2 GB ilaa 10 GB inay gaaraan ayaa laga yaabaa marka intaas ayaan jeclaystay inaan idinla wadaago fadlan haddii ay tahay marka kuugu horeysa channelkana soo booqatay fadlan subscribe saar fura calaamada gambalaalka si ay kuugu soo dhacaan muuqaal walba aan soo gelino haddaad videoga ka faa'iideyn la garay si YouTube-ka videogan u sii faafiso una sii gaarsiiso walaalahay kale lana wadaagna asxaabtaada muuqaalkan si ayagana ugu faa'iideystaan ugu dambeyntiina waxaa idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.